gurigii markii albaabka sidaas soo gashay oo asiiradii register sidan tiri baa waxay aragtay shakhsi dhoomanaya oo talaagada agtida taagan isla mar ahaantaana xidhan dhar midabkoodu uu yahay grey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابنا قيام هذا كنا جنلك توبينها يوتيوب سدوا كله فيسبوك بيجكا كسروا صاحبيال مقال كنا مانتا سنة يكون سجال بقول سجاشن كي واحد جري قيس لو مقعب جري تيدي أم ببسي تيدا صد اللو بدني هدت كوا حيوي يران تيدا قيس كانوا حتى بكا كوبنا أفر حفلود لبا قبضود يهود يابهود أيها قيس كنا حتى وحيلا هاين عادو وحيلا هاين مال مقالدي الدجناين كبحسن أو بورها دحيستا أيها وحي كلها هاين قرير قرياسي طبعا كمان نولين وسعادة ومان deganeen laakiin waxay ima jireen waqtiyada ay leeyihiin munaasabadaha gaarka sida inay wax u dabaaldegayaan xaflado kale sida inay waqtiyada qaar jawi isaga soo qaataan iyo sidoo kale waxay ima jireen ciida Christmaska iyo waqti walba ay doonayaan inay jawi iska soo qaataan ayay ima jireen maadaama ay warkeen meeshan inay tahay goob bannaan cidla ah bila buuqa ay jawi yar oo degan oo qabow ku soo qaataan hadaba taariikhdaasi ayada ah sanada 1990kii way soo amba baxeen ayagoo islaha magaalada buuqeeda iyo buugteeda iyo qayladeeda halkaas si nafis idinku jawi qurux badan ugu soo qaata bila buuq bila qaylo taga meeshay kaabinkaas yar ku dhisteen waxa la oran karaa waa okay waa fikrad fiican laakiin hal ceeb ayay leedahay ceebta ama cilada ay leedahay ayaa waxay tahay waa meel fog oo cidla ah marka kulay waa meel fog oo cidla uga jeedo meel saxara oo no waxa ku taala meel qurux badan oo buura ah laakiin waa meel hadana dad aan ku nooleen oo magaalada aad uga fog oo ay adag tahay mushkilada ku dhacdo sida lagu ogaado qoyskan hadaba saaxiibel waxa ka koobnaa 4 xubnood waa 2 gabdhood hooyadood iyo aabahood aabaha waxa lagu magacaabaa Rolf hooyadana Kay gabdhahana mid waxa lagu magacaabaa Trisha iyo Lini saaxiibada qiimaha badan oo dhacdadani waxay ka dhacaysaa dalka Mareykanka ka dhacaysaa ma way ka dhacday already gaar ahaan Oakley bartamaha Utah haddaba maalintii ciidda Christmaska intii aan la gaadhin 3 maalmood ka hor ayaa qoyskani waxay bilaabeen istiyaarin inay soo diyaariyaan qolkii la yarana nadiifiyo la hagaajiyo la sharaxo maadaama ay qorsheynayeen maalintaasi inay ku marti qaadaan gurigaasi yar asxaabtooda eheladooda kala duwan ayaydood awowgood yani dadkii familku inay meeshaasi ku kulmaan ayay doonayeen maalintaasi Christmaska waqti fiican ay ugu qaataan haddaba ayagoo istiyaarintii ku jira oo qolkii nadaafadiisa iyo qurxintiisa iyo hawlihiisa ku mashquulsan maalintaasi haddaba ayagoo shaqeynaya ayaa waxay ogaadeen inay alaabo kale u baahan yihiin ay gurigii kaga yimaadeen waxay bilaabeen haddaba in iswada raacaan gurigiiba tageen alaabtii bay soo qaadeen qoyskii guriga markay soo wada gaadheen alaabihii ay u baahnaayeen urursadeen ayaa haddana sidoo kale waxay suuqa uga baahdeen alaabo kale inay soo gataan si ay hal maruun si wada qaadaan supermarketkii ayay tageen alaabihii u baahnaayeen bay soo gateen waxay soo dhaqaaqeen haddaba dhanka iyo gurigii yaraa buurta ku yaalay laakiin maadaama qoysku badnaa alaabtii sidayna sidoo kale badnayd waxay kala qaateen 2 gaari gaariga koowaad waxa saarnaa 3 waa Lina hooyadeed iyo ayaydeed gaariga kalena waxa saarnaa 2 qof Trisha iyo aabaheed haddaba saaxiibayaal labada gaari waxa horeeyay gaarigii ay saarnaayeen Lima ayaydeed iyo hooyadeed ayaga ayaana meeshii ugu hor gaadhay meeshani uu gurigana yari ugu yaalay inkastoo ahayd meel fog oo cidla ah haddana waxay ahayd meel la garanayo oo macruuf oo caan ah waxaana ahayd meel wada baraf ah sidoo kale waxay lahayd albaab laga soo galo albaabka hortiisa waxa yaal gawaari loogu talagalay barafka marka Lina ayaydeed iyo hooyadeed waxay bilaabeen inay gaarigii albaabka hortiisa dhigaan deetana ay soo kaxaystaan gaarigii kale loogu talagalay barafka si ay guriga ugu gaadhaan wali Trisha iyo aabaheed waa soo socdaan oo ma soo gaadhin oo intoodan kale ayaa ka horeysay si u socdeen waxay soo gaadheen albaabkii guriga agtiisa waxay bilaabeen Lina hooyadeed iyo ayadeed inay alaabihii ka soo dadajiyaan gaarigii laakiin Lina waqtigaas ayada zaid ay u dhaxmoonisay faraheeda ayaa isku dhigdhigay dhaxan darteedu deetana waxay ku tiri hooyo guriga ayaan galaya waana soo yar diirinayaaye intaaba idinku alaabta nooga sii dadajiya Lina gurigii markii albaabka sidaas soo gashay oo asiiradii register sidan tiri baa waxay aragtay shakhsi dhoomanaya oo talaagada agtida taagan isla mar ahaantaana xidhan dhar midabkoodu uu yahay grey dabcan dhulku yara mugdi ayuu ahaa qofka si wacan uma arkayn laakiin way arkaysay shakhsiga taagan ee dhoomanaya balse maana baqin oo waxay islahayd waa kaasaniskaaga maybe habaryaraha caruurta dhashay qofka mid ayaa meesha ku yara dhoomanaya oo idinka soo horeeyay maadaama de familku ay meesha soo wada gaargaadayeen oo laga warhayo laga wada shaqeynay marka waxay islahayd waa mid kamid gabdheed waxay isku haydeen oo meesha ku dhoomanayso oo ka yar naxis leh waa dhay wax nooca sameys leh oo ka yar cabsiis leh marka maana baqinba wax yar kadib saaxiibayaal gabadhii Lina ahayd dhankeeda waxa uu soo dhaqaaqay shakhsigii qolka ku jiray
ee talaagada daba taagnaa ee dhuumanayay qofkii sidaa ayay u fiirinaysay ayadoo fiirinaysa ayuu si tartiib tartiiba dhankeeda ugu soo dhawaaday laakiin markii uu qofkii ku soo dhawaaday ma aanu noqon habarwadaageed amase shakhsi ay wax isku yihiin maba aanu ahayn qof ay garanaysay waa wiil dhalinyar ah oo markii ugu horreysay nolosheeda arkayso ninkii asaga ahaa markii uu gabadhii ku soo dhawaaday waxa uu dhankeeda ku soo jeediyey bastoolad markaas ayay Liina naxdintu bilaabmatay ayadoo aan weli waxba dhicin oo Liina yaaban tahay oo wax allaaliyo waxa ku dhaqaaqdo ay garan laadahay baa guriga waxa talaq soo yidhi hooyadeed sida ay guriga u soo gashay ay Liina soo garab istaagtay waxa bay aragtay nin Liina baskoolad ku soo jeediyo hortaagan isla markiibana waxa soo baxay ninkii soo garab istaagay nin kale oo dambiilaha ninkaas ayaa isna sidoo kale waxa uu baskooladii ku jeediyay hooyadeed ilaa hadda raggan magacooda ma garanno dambiilaha dambe waxaan odhanaa dambiile number 2 kii holana dambiile number 1 ninkii dambiilaha ahaa ayaa maamadii ku yidhi bartaada ka dhaqaaqin maamadii way yaabtay war maxaa dhacay wuxuu jiraan goorma guriga soo gashay bab maamadii xabada ku taalaaba dambiile number 2 maamadii ayuu rasaasta ku fasaxay rasaasta sidaada u dhacday dhawaqeeda waxa maqashay ayadeed oo dhanka guriga uu soo socoto albaabka markii uu soo gaadhay isla markiiba guriga ayaadna soo gashay saad uu soo gashay dambiile number 2 waa baskoolada ku hayba waa ku fasaxay bal ajaa'ibtan iyo imtixaankan isdaba yaal feeri isla markii uu islaanta sidaas ugu dhuftay waxa guriga dibadiisa soo istaagay gabadhii iyo aabaheed oo in yarun ka dambeeyay baa waxay gabadhii yarada Liina iyo tuugadii maqleen sanqadha gaadhigii barafku albaabka horteeda soo istaagay isla markiiba aabaheed ayaa gaadhiga ka soo degay guriga ayuuna soo galay sida uu guriga u soo galay xabadii baa lagu hayaa dambiile number 2 xabaduu ku hayaa odaygii ha dhaqaaqin Liinana isla markaasi waxa gacanta ku qabtay dambiile number 1 oo dabarka ayuu bastoolada kaga hayay bal hadda u fiirsa saaxiibayaal dhacdooyinkani aadka u la yaabka badan leh aadka u halista badan leh daqiiqado yar gudaheeda ay ku dhaceen waa familtan waqtigaas ayada gabadhan yar Liina oo dambiile number 1 oo bastoolada dabarka kaga hayo 16 jir ayay ahayd way yaaban tahay horteeda waxay ku arkaysaa ayadeed iyo hooyadeed oo si xun u dhiig baxaya oo naftu ka baxayso labaduba ay marayaan sakaraadkii wax xun ka badnaa noloshooda dabcan wax yar kadib waxa soo gashay sidoo kalena Trisha gabadhii yareed ee aabaheed la socotay ayadna baxarka way ku jirtaa meel u dhaqaaqaysa ma jirto odaygii ayuu dambiile number 1 ku yidhi bartaada ha ka dhaqaaqin wax allaaliyo waxaad haysana dibadda oo soo saaro soo wadataadi odaygii ayaa isla markiiba sida ugu dhaqsiyaha badan waxa uu qaatay amarkooda jeebka ayuu gacanta geliyay wax allaaliyo wixii lacag ugu jirtay ayuu soo daadiyay waxa ku yidhi furaha hooy gaariga qaata wax allaaliyo waxaad u baahan tihiin guriga ka qaata haddaba saaxiibayaal dambiile number 2 oo bastooladii ku jeediyay oo ku haya dhanka iyo odaygii ayaa dambiile number 1 amarka bixiyay waxa ku yidhi ku fasax dambiile number 2 ayaa soo fiiriyay waxa tiri ku fasax baan ku yidhi amarka waxa bixinaya dambiile number 1 asaga ayaana ku amray in markii hore uu islaanta iyo hooyadaba uu ku dhufto laakiin dambiile number 2 doorkan amarka ma qaadan waxa uu bilaabay inuu majarafadii wax soo qaato deetana uu ku dhufto laakiin dambiile number 1 ayaa ka diiday intuu gabadhii sii daayay ayaa waxa uu dhaqaaqay dhankaasi odaygii ayuu bilaabay deetana inuu rasaastii ku furo bastooladii markii uu ku ridis yiri uu bac ka siiyay way u dhici weeyay mar kale ayuu ku celiyay dabcan way u dhici weeyay mar saddexaad ayuu ku celiyay markaas ayuu u dhacday odaygiina dhulka ayuu ku dhacay gabdhihii yaryara anfariir aabahood hooyadood ayadood dhulka ayay waran yihiin waana dhiig baxayaan intaasi kadib dambiilayaashii baastooladoodii ayay iska ceshteen deetana gabdhihii ayay ku yidhahdeen intay dhankoodu soo jeesteen waxaan u baahanahay bensiinka meeshuu yaalla ayay u tilmaameen waxay doonayeen inay caddaymaha baabi'iyaan oo guriga gebigiisa ka gubaan guriga ayay ku rusheeyeen deetna dabay qabadsiiyeen intaasi kadib saaxiibayaal dambiilayaashii markii ay dabka qabadsiiyeen ay gubeen kaabiinkii yara waxay bilaabeen inay labadii gabdhoodna ay ku dhahdaan soo fula gaadhiga deetana ay la tagaan intii aanay gabdhaha kaxaysan ka hor waxay bilaabeen horta waxay u baahnaayeen oo dhan oo muhiim u ahaa inay ka dhex qurtaan guriga deetana ay gaadhigii barafka ay saartaan labadii gabdhoodna soo fuula ay ku dhahdeen yacni labada gabdhood maxay ku samaynayaan miya afduubanayaan aduu labadii gabdhoodna way kaxeeyeen way la tegeen horta kaabiinkii markii ay dabka qabadsiiyeen ay sidhaadeen ha gubto nasiib wanaag ma aanu wada guban mabase meelaha qaar ayuuna dabku gaadhin baa la odhan karaa oo sidii damcoodu ahaa umaanay dhicin waa gubtay laakiin haddana maanu wada guban haddaba saaxiibayaal markii ay soo gaadheen albaabkii fogaa ee gaadhiga caadiga ka qaadanayeen baa sidaa markii ay gaadhigii uga degeen ay alaabihii ka dhex quran ee gaadhigoodii kale ku wareejiyeen baa meesha waxa soo gaadhay gabdhihii yaryara adeerkood oo doonaya daasna inuu faamilka ka daba yimaado oo guriga yar yimaado ninkii odayga ahaa adeerkood waxa uu arkay labadii gabdhood oo adeerka u ahaa oo laba wiil oo kale la socda waxa isku dayay inuu salaamo la hadlo laakiin labadii gabdhood way dafireen odaygii saada u fiirin way ka dhaceen gebigiisaba wuu yaabay war maxaysan kula dhaqmayaan maxaa qaldan say wuxuu jiraan wuu yara dhowl cadday inuu la hadlo ayuu damcay laakiin waxa uu arkayba labadii gabdhood oo inkirayaba iska dhigaya sidii inaanay garanaynba labadii gabdhood degdeg ayay gaadhigii kale ugu wareegeen
deetana way dhaqaaqeen gaadhiga haddaba saaxiibayaal markii uu gabdhihii la dhaqaaqay ayaa odaygii adeerkood dhankooda u soo dhaqaaqay isagoo doonaya dee inuu salaamo at least uu yidhaahdo hey dee have a good day inuu damaca salaamiyo kale laakiin gabdhihii way soo fiirin waayeenba odaygii waa yaabay waxa uu yidhi dhaqanka noocana weligood kuma aragayse wuxuu jiraan haddana waxa uu yidhi malaha boyfriendoodii bay la socdaan oo way iga yara dhacayaan laakiin habluhu aad ay u caqli badnaayeen oo waxay islahaayeen haddii aad la hadashaan nimankanna ay ogaadaan inuu adeeru yahay nimankan dhib ayay u geysan doonaan oo odaygana way raacin doonaan oo way dili doonaanba dabcan saas ayay u badan tahay isaga lafdirkiisa haddii ogaadaan inuu family ka mid yahay way dili lahaayeen marka odayga ayay dininayeen oo ogaan ayay odayga uga dhacayeen sidii ayaana ku tegeen intaasi kadib odayga oo yaaban ayaa gaadhigii iska dhigay kii barafka ayuu ka haystay asagoo haddaba haggii guriga u sii socda baa waxa uu arkay odaygii shakhsi dar caadi xidhan yani dharkii barafka aan xidhnayn oo dhankiisa oo soo socda oo ka soo socda dhanka iyo kaabinkii uu yaaba wuxuu yiri war waa kuma shakhsiga barafkan zaidka dhax lugaynaya asagoon xidhnayn dharkii barafka loogu talagalay tartiib markii ugu soo dhawaaday waxa uu arkay shakhsigan inuu yahay shakhsi wada dhiiga in yar kadibna waxa uu ogaadayba shakhsigan inuu yahay walaalkii labadii gabdhood aabahood oo odaygii maanu dhiman uu yaabay ninkii war maxaa kugu dhacay war jooji hadalka bal horta gaadhiga nicil gaadhiga ku soo booday gabdhahayga ii badbaadi gabdhahayga iga dabagee markaas ayuu odaygii adeerkooda ha ogaaday xaaladday gabdhihii yaryara ku jireen markiiba gaadhiga ayuu ka daba kaxaystay laakiin nasiib darro waa waaye oo way tegeen isla markiiba waxaa isku dayey inuu 911 waco balse meeshaasi maadaama ay ahayd meel wada buuro oo buuro waaweyn ay ku yaaleen networku waxuu ahaa daciif antaynadu maba aanay jirinba ilaa waxoogay ka soo dhawaaday deetana markii dambe uu dhacay booliska ayuu la hadlay wax walba uu sheegay gaadhigii gabdhaha yar raftooba buu sifeeyey xataa nambarka gaadhiga ayuu u sheegay maadaama gaadhiga kaxaysteen oo ahaa gaadhigoodii gaadhiga odayga dhaawaca iska lahaa marka ta ugu daran waxay ahayd uu ku yidhi booliska waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo gaadhaan walaalkaybaa halis ku jira xaaladiisa caafimaad waa halis sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan u baahanahay in helicopter naloo soo qaado si loo badbaadiyo walaalkay sidii ayaana dhacday isla markiiba helicopter ayaa soo gaadhay odaygii isagaa horta dhakhtarka ayaa loola cararay waa la badbaadiyey nasiib wanaag horta qolyihii booliska oo soo socdo gaadhi watay baa waxay arkeen nimankii dambiilaha ahaa gaadhigay wateen isla markiiba dhankii gaadhigii ay wateen ayay u kala celiyeen u jeesteen balse dambiilayaashii markay arkeen boolis dhankooda u soo socda gaadhigii bay xawaare ku kaxeeyeen isla markiiba booliskii waa dareemeen inay nimankan yihiin dambiilayaasha gabdhihii horta waa farxeen oo waxay yidhaahdeen ugu dambayn booliskii waana arkay oo odaygii adeerkiina ahaaba kolleyba markuu tegey soo arkay xaaladda deetana booliska la hadlay saaxiibeel nimankii ayaga ah markii booliskii daba dhigtay intii ay ka baxsan kareen horta way ka baxsadeen laakiin maadaama meeshu ahayd meel wada barafa way ka dheereen kari waayeen waxaanay bilaabeen inay gaadhigii meel istaajiyaan deetana ay lugahooda ku baxsadaan balse meel lamaana gaadhin waa la soo qaqabtay labadii gabdhoodna waa la badbaadiyey labadii ninna gacanta ayaa lagu soo dhigay labadaas nin haddaba saaxiibayaal waxay ahaayeen labada nin idin muuqda waa Von iyo Edward labada nin haddaba taariikhiyan markii la fiiriyey waxay ahaayeenba laba nin oo dambiila ah siiba ninka lagu magacaabo Von dambiyo fara badan buu hore u geystay dhanka odaygii kale dhaawaca ahaa dhakhtarka ayaa la geeyey xaaladiisa caafimaad aad ayay u lidatay laakiin ilaahay amarkiisa waa ka badbaadiyey horta dilkaas sababtuna waxay ahayd ba la yidhaahdaa qoriga ay ku dileen ayaa waxuu ahaa ka ugaarsiga qoriga ugaarsiga laftirkiisu waa qori laakiin haddana waxaa la yidhahdaa way kala halis badan yihiin oo saamayntiisu way ka hooseysaa qoryahan kale caadiga haddana at the end of the day waa qori waa halis badan yahay xagga isha agteeda ayuu kaga dhacay odayga intaasi laftaasi dhulkaas ayaa jabtay balse maskaxdii gudahaasi dhaawac saasa kamaanu gaadhin keliya waxaa jabtay oo wax noqotay laftaasi isha agteeda marka odaygu waxau leeyahay marka arkeen in dadka kala dhaqaaqeen ana naftii weli ugu jirto isla markiiba waan cararay maadaama benziin iyo gaas iyo wax lagu shubay dhanka suuliga ayaan u cararay intuu gurigu isqabsan deetna waan meedho biyo ayaan isku shubay meeshina waan ka soo ordo ma baan kala garanay xilli aan ka soo orday maadaama aan aad ugu warwarayay gabdhahaygii ay tuugadii wateen kaabinkii yaraan bas gurigii yaraa markii ay booliskii soo gaadheen si ay baaritaan ugu sameeyaan horta waxay arkeen in aad u gubtay laakiin haddana oo aanu wada guban oo waxay arkeen meelaha qaar oo aanu dabku gaadhinba meelihii bay fiiriyeen baaritaan ku sameeyeen waxaana ka heleen camera mise memory aduu waxbay meesha ka heleen way qaadeen markii ay fiiriyeenna waxay arkeenba muuqaalkani oo raggan iska duubeen ayagoo hadiyadihii furfuraya ku raaxaysanaya oo isaga faraxsanba hadiyadihii Christmaska ay familkani lahaayeen ayayba si nafis u furfurayeen sida muuqaalka ka muuqata ninka kamarada laga duubaya waxa ahaa Von oo Edward ayaa kamarada duubayay ninkana lagu magacaabo Vonna wajigiisa waxaad ka dareemaysaa inuu normal aha yani aanay ka muuqanba ninkani inuu dambi geystay oo madaabiyay halkaas yani waxa ka muuqata ninkan inuu ahaa nin bilaa naxariiso aad u halis badan I don't know. How am I supposed to find out?
ugu dambeyn nimankii ayaga ahaa maxkamadda ayaa la soo istaajiyey Von ninkan bilaa naxariista oo ahaa sida la aaminsan yahay caqligii dabray ee ka dambeeyay qorshahan waxa lagu xukumay horta isaga dil oo waxa la yiraahdo ma sii noolaanaysid ba adigu ummadda halis ku tahay teeda kale markii maxkamadda la soo taagay ninkan wax naxariista kamaani muuqan xataa inuu ka xun yahay dadka maanu dareensiin maxkamadda markii la soo taagay yani waxaad wajigiisa ka dareemaysaa in hawshan uu qabtay dadkan uu laayay inuu ku faraxsano dhankiisa oo ka hayeen hatta wax raali gelin maanu bixin kibir ayaa ka muuqdayba ugu dambeyn dil ayaa lagu xukumay xaga ninkii kale saaxiibkiina lagu xukumay xabsi daa'im nimankan markii hore qorshoodu waxa ahaa in guriga yar banaanka ku yaal inay tagaan ay soo baadhaan maadaama hadda ka horna ay guriga yar oo kale banaanka ku yaala ay soo dhaceen marka hore ayaa hawlaha noocan ugu barteen guriga yar markay maadeen ay baadheen ay dareemeen inay qoyskani soo noqon doonaan oo waxay go'aan ku gaadheen inay sii sugtaan deetana markay maadaan ay baadhaan hadiyadahooda iyo lacagaha iyo wax alaale waxay sidaan ay ka qaataan balse maana baadhan oo kaliya tay qoyskiiba baabiyeen gibigoodiiba ugu dambeyn hadaba saaxiibayaal maalintii maxkamadda markii xabsi daa'imka lagu xukumayay ninkii kale Edward waxa uu arkay si kadisa odaygii uu islahaa waa dhintay oo maxkamadda soo istaagayba waraadha sooriki madax ku fujiyay ma inoo shaawili nimankii markii saa loo xukumay sanadii 2014 Von racfaan ayuu dalbaday laakiin waa laga diiday oo waxa la yiraahdaa adiga waxaan dilahayn laga yeeli maayo nasiib darro muddo kadib odaygii gabdhaha yaryar dhalay waxa ku dhacay cudurka kansarka cudurkaasi dartii ayaanu u dhintay dhacdadana waxa aad uga sheekeeyay labadii gabdhood u dhalay iyo adeerkood maadaama goobjoog ay u haayeen waxaan noqotay runtii dhacdadaasi dhacdo runtii xasuus aad u xanuun badan kaga tagtay labadaasi gabdhood ugu dambeyn waxay go'aansadeen in gurigii yaraa ee lagu baabiyay qoyskooda ay dib u dhisaan si ay ugu xusaan oo ugu soo xasuustaan mar waliba siiba waqtiyada ciidda Christmas-ka oo kale dhowr maalmood ka hor meesha ay diyaarin jireen ay tagi jireen isla mar ahaantaana ay borordiiq iyo ducay wax ugu sameyn jireen aduu say wax xasuustaan bay halka tagi jireen iyo rajog joogi jireen si markay ciidda Christmas-ku gaadhana ay halkaasi ay waqti ugu qaataan maadaama ay meeshaasi noqotay meeshii ugu dambeysay ay waalidiintooda ku arkaan ayadood iyo hooyadood okay saaxiibayaal dhacdadan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa aad ku xanuunka badan leh qabsatay qoyskaasi waxaan rajaynaynaa si fiican u soo daawateen oo ilaa halkaasi nala soo gaadhin haddii halkaasi nala soo gaadhay waa mahadsan tahay waxaan ka codsanaynaa muuqaalka aad like saar sidoo kalena channelka dadweynaha ku soo biro subscribe saar 800,000 haynu xidhno sidoo kalena Facebook page-ka follow soo dhaha aragtidiina dabcan xagga hoose comment-ga noo wadaaga intaynu muuqaalkan loo xiiso leh sumada waxay kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah bye